السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo dhameynay socodkii maanta oo ay ahayd maalintii arthritis-ka adduunka. marka hospitaalka iyo shooda iyo dhammaan dhakhaatiirtu waxay sameeyeen socod 30 daqiiqo ah si loogu wacyigeliyo dadka had iyo jeer xanuunka la nool. xanuunkan arthritis-ku had iyo jeer waxa aad iyo aad muhiim u ah in dad qofka la nool uu sameeyo jimicsi. qofka aanu haddii aanad lahayn xanuunkan dadka aanu ku dhicina ay sameeyaan socod iyo jimicsi aad iyo aad bay muhiim u tahay. xanuunkan waxa weeye wax daawo oo rasmi ah ma laha, laakiin waxa la sameyn karaa in dib loo dhigo delay lagu sameeyo horumarka xanuunku si aanu kugu horumarin xanuunkani. marka aad iyo aad waxay muhiim u tahay in wacyigelinta la qaato, la sameeyo jimicsiga. dadka miisaankooda badan yahay waxa muhiim ah inay miisaanka iska yareeyaan. haddii aanad miisaan badan lahayn oo jirkaagu isku dheeli tiran yahay waan ku hambalyeynaya. haddii laakiin miisaankaagu badan yahay waxa muhiim ah in aad samayso miisaan dhimis. had iyo jeer waxa muhiim ah inuu qofku socdo maalintii 30 daqiiqo ilaa 45 daqiiqo si uu u kontrolo miisaankiisa una ilaaliyo caafimaad qabka jirkiisa. waayo xanuunkan arthritis-ka maanta ay tahay dabaaldega maalinta adduunka daawo rasmi ah ma laha. marka saaxiibayaal ka faa'iideysta wacyigelintan aad iyo aadna waa idin salaamaya. waa inoo kulanti dambe. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Forma de